gudoomiyaha qalka wakiilada ahna hogaamiyaha xisbi siyaasadeedka mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo weliyaan saraakiisha sare oo ka tirsan isla xisbigaasi ayaa saaka hirtiisa socdaal luga ku soo maray qaybo kamid ah goobaha bulshada isugu timaado ee koonfurta Hargeysa. halkani waa maqaaxida Jiica oo caan ka ah magaalada Hargeysa inta badan ay isugu yimaadaan xilliyada Jimcaha iyo Fasaxyada dad isugu jira dhalinyaro iyo sidoo kale waayeel kuna qaata waqti fara badan sidii ay isku xog wareysan lahaayeen. gudoomiyaha iyo sidoo kale xubnihii welinay waxay saaka qayb ka ahaayeen dadkii goobtaasi ku shaahiyay isla markaana xogta dadka si weyn u dhuganayay. salaan gacan qaada oo inta badan waayeelkii dhalinyaradii goobta ku sugnayd gudoomiyaha ugu tagayeen kasoo isaga iyo waftigiisu waxay ka soo boqoleen goobtan iyagoona u soo kicitimay qaybo kamid ah jidka halbowle ee kala qaybiya xaafadda Jiica. halkani waa xafiis cusub oo dhalinyaro iskood isku xilqaantay isla markaana kamid ah taageerayaasha xisbiga wadani u aasteeyeen inay ka iba fulaan xafiis cusub oo xisbiga wadani yeelan doono. gudoomiyaha iyo sidoo kale xubnihii welinay ayaa si diiran goobta loogu soo dhaway isagoona salaan la dhex maray dadkii tirada badnaa ee soo dhaweyntiisa goobtan diyaarka ugu ahaa. intaa kadib gudoomiyuhu waxa uu si rasmi xadhiga uga jaray xafiiskan cusub ee loogu adeegi doono awaamirta xisbiga wadani iyo sidoo kale adeegyada inta badan xisbigu rabo inuu ku kasbado shacbiga reer Somaliland si uu cod uga helo. waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay mid kamid ah dhalinyaradii iskood isku xilqaantay isla markaana xafiiskan furay. bismillahirrahmanirrahiim. maanta waxaa noo farxad ah maadaama aynu joogno jamaacadii sare waxaynu halkan ka furnay oo xisbigii wadani maadaama ka tirsannahay xubin weynna markaas aynu ka nahay waxaan markaa xisbiga markaas garab iyo gaashaan iyo maaragtay xubin buuxdo aanu siinay in yacnihii maalkayga xoogayga aanu gashanno. xisbigana waa xisbigayagii annaga ayaan is abaabulnay muddo fara badanna waan ku soo jirnay markaa waxay noo diyaaro naga go'an inaan xisbiga hoo iyo hiilba markaasaan la garab istaagno. miyaha xisbiga mucaaradka wadani u qaabilsan gobolka Maroodijeex Saciid Bustaale ayaa isaguna u mahad celiyay dhalinyaradaasi. in dhalinyaro iyo haween iyo aqoon-yahanada abaabulay iskood isu abaabulay ay xafiis kan aynu saaga xalin ka jarnay ay ka fureen xaafaddan jamaacadda sare ee degmada Maxamuud Haybe. runtii aad iyo aad ayaanu ugu habaryeeynaa sharafta iyo karaamada ay isbaabulkay sameeyeen. waxaanu u mahadnaqay gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa gunaanadkii halkaa kula hadlay shacbigii tirada badnaa ee soo dhaweyntiisa diyaarka ugu ahaa isagoona uga mahad celiyay dhalinyaradan iskood isku xilqaantay doorka muuqda iyo taageerada ay u muujiyeen xisbigooda. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان الشعب يدقن حافظا جماعة الصلاة وأنا مهضنقيا وحنا مهضنقيا لما المسؤولين تقولك مرودجيح حسبية يدقمده محمود هيبة وحنا مهضنقيا لأن يرد الجار السؤال أبو شيء حافظا جماعة الصلاة ويجوا يسكوا السؤال أبو لي حفيز كنا فري كريي قلبي سار كيسين قلب كل هاي لا إنترنت فيه وأصله وتسألون أكثر والشعب يقولون حسابته بريود حسابته حلو دون شيء الشعب يقول سبب ليه وحسبيه وحق الشنيان وأصله والطريق الصح هاي حسبيه كوكوري وحاشا حسبيه أنا لبوده يرني حسبيه ما يقفر الله وحلا أيوه marka waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyaradaas waxaan jecelahay tusaalaha in ku daydo shacbiga reer Somaliland dhammaan kasta meel kasta uu joogo gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inkastoo maalin Jimcaha waa ka sanad dadku soo abaabulay waxaana farxad ii ah inaan xafiiska furo oo xadhiga ka jaro oo noqdo sida inamadu dhalinyaradu sheegeen hablo iyo wiilba xafiis shaqaynaya 24 saacadood hadii ay ka dhigo. waxaan mahadnaqayaa dhalinyarada hablaha odayaasha waayeelka ka soo qayb galay munaasabadan waxaan insha Allah rajaynayaa in xisbigu sida uu koro waxaan muujinaysaa arintani rabitaanka shacbiga ee xisbiga wadani taasina waxaan leeyahay wata guusha gaarsiin doonta insha Allah waqti dhow hadii ay dalku isbedel buu baahan yahay
isbeddel kuna idinku ku xidhan yahay shacbigu ku xidhan yahay codkiinu ku xidhan yahay dareenkiinu ku xidhan yahay waddanka waanu soo wada marray bari iyo galbeedba shacbigu waxay diyaar u yihiin isbeddel gudoomiyaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxa uu mar kale ugu baaqay xukuumadda somalilan inay xabsiyada ka sii deyso dad uu tilmaamay inay xilligan u xidhan yihiin isagoona si gaara u dul istaagay cadaadis iyo culays uu tilmaamay inay ku hayso shacbiga ku dhaqan gobolka saaxil somalilan waxa baryahan iyo xisbiga kulmiyaba caado ahayd baryahan dambe xadhig fara badan waa loo marin dariiqa sharciga ah waxaanu u soo jeedinaynaa hadday tahay saxaafad hadday tahay oday dhaqan hadday tahay madax xisbi hadday tahay haween in dadka lagu xidhxidhay dariiqa aan sifa sharci ahayn xorriyaddooda sida ugu dhaqsaha badan loo soo celiyo culaysyada laga qaado shacbiga gaar ahaan gobolka saaxil oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.